shubka ahaa xildhibaanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed kitaabka uma marin baydhabo uma marin ummadda Soomaaliyeed u maray inuu maanta yiraahdo gobolka Galgaduud iyo Mudug iyo Garowe iyo Galgala iyo Waqooyi shabaabka ha loo didiyo waxaanu ka codsanaynaa gudoonka baarlamaanka in xasaanada lagala noqdo kaasoo kale in xil loo dhiibo ma ahayn bil xaqiiqo in xil loo dhiibo ma ahayn aad baan uga xumahay inuu col yahay Galmudug iyo Puntland qalbigayaga ayaa waxay u yeelaysaa dhibaato waxaan codsanaynaa xildhibaanada labada maamul ka soo jeeda inay mooshinka ninka geeyaan ayaan ka codsanaynaa qodobka ugu dambeeyaan ka hadlayo ninka xildhibaanka ahaa ee ka hadlay baydhabo chananka ciidamada Soomaaliyeed ciidanka qaranka ahaa shubka ahaa xildhibaanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed kitaabka uma marin baydhabo uma marin ummadda Soomaaliyeed u maray inuu maanta yiraahdo gobolka Galgaduud iyo Mudug iyo Garowe iyo Galgala iyo Waqooyi shabaabka ha loo didiyo waxaanu ka codsanaynaa gudoonka baarlamaanka in xasaanada lagala noqdo waxaan u sheegaynaa oo aan wuxuu dhiirigeliyay in cadawga uu yahay ee uu necab yahay dadka meesha ka soo jeeda ayuu noo cadeeyay Galmudug iyo Puntland cadow iskaga filanta waligeedna waa iskaga filnaayeen cidna u daba fariisan mayso waxaan u sheegayaa taariikhda maguurtada ah horta waxa ku nool dadka koonfur galbeed Galmudug iyo Puntland dad 10,000 oo qof ka badan amnigoodu isaguna ma hayo ilaahay baa haya anagana ka masuula xagee dadka ku og yahay ninka sidaa leh halka lagu diyo soo dadka uu leeyahay hal laayo dadkiisii ma dhaqaale iyo hanti ayay Puntland ku bixisay inay koonfur galbeed dawlad noqoto xaguu ku ogaa Puntland baa ku bixisay xilliga Cabdullaahi Yuusuf caasimadii Soomaaliya la geeyay dawladda Soomaaliya ku shaqeysay hantidii Soomaaliya gashay ummadda Soomaaliyeed baa iskugu tagtay warnigu xagee jeegmiyay sarkaal Soomaaliyeed oo ciidan loo soo tababaray oo dadnimo ku jirto oo damiir ku jirto kaasoo kale in xil loo dhiibo ma ahayn bil xaqiiqo in xil loo dhiibo ma ahayn aad baan uga xumahay inuu col yahay Galmudug iyo Puntland qalbigayaga ayaa waxay u yeelaysaa dhibaato waxaan codsanaynaa xildhibaanada labada maamul ka soo jeeda inay mooshinka ninka geeyaan ayaan ka codsanaynaa